ما أنت ما ذاكرت المقالة اللي جبتوها كذا بسم الله دجال عنفر يا صومالي بس كشي والله بلا إله وما تصومالي دجال القلادة اللي جبينها كذا عنفر بقتوا ذركسا xaaladda waddanka Jabuuti ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay tahay mid cakiran iyadoo halkaasi ay ka socdaan isku dhacyo u dhaxeeya dadka shacabka ah ee ka soo kala jeeda Cafarta iyo Soomaalida iyo waliba dagaal toos ah oo u dhaxeeya ciidamada waddanka Jabuuti iyo mucaaradka waddankaasi ee ka soo jeeda dhinaca Cafarta ee loo yaqaan Nafrood aynu ku horeyna dhinaca ciidamada dagaalka u dhaxeeya ugu yaraan 12 askari oo ka tirsan ciidamada waddanka Jabuuti ayaa geeriyooday kadib markii fadhiisin ay lahaayeen ay weerar ku qaadeen jabhadda Cafarta ee mucaaradka ku ah waddanka Jabuuti dagaalka kula jirta ee magacooda loo soo gaabiyo Frood sidoo kalena wararku waxay sheegayaan in askar kale lagu dhaawacay weerarkani oo tiro badan weerarkani oo ka dhacay deegaanka loo yaqaan Garabtiis sidoo kalena waxa lagu soo warramayaa in askar kale oo nool ay afduubteen jabhadda Cafarta ee Frood kuwaasi oo ka afduubtay goobtan oo ahayd xero military oo deganaan ciidamada waddanka Jabuuti ma jiro war faahfaahsan oo ka soo baxay waddanka Jabuuti iyo jabhadda Frood oo ku saabsan weerarkan iyo xaaladii ugu dambeeyay ee waddankaasi Jabuuti balse xaaladda waddanka Jabuuti ayaa ah mid cakiran waxaana socda dibadbaxyo iyo dagaalo culus oo mucaaradka Jabuuti iyo waliba ciidamada waddankaasi u dhaxeeya waxaana sidoo kalena muuqaalo ay baahiyeen dadka muwaadiniinta ay ku baahinayaan baraha bulshada muujinaya xaalad cakiran oo ka taagan gudaha waddanka Jabuuti gaar ahaan caasimadda waddankaasi kaasoo ay dadku ku sheegayaan inuu dagaal toos ah dhex marayo Cafarta iyo Soomaalida ilaa iyo haddana ma jiro war rasmi oo ka soo baxay xukuumadda waddanka Jabuuti mucaaradka waddanka Jabuuti oo xalay toona war soo saaray ayaa waxay eedeymo culus u jeediyeen madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle kaasay ku eedeeyeen inuu yahay karidii talis isla markaasina dib u dhigay waddankaasi waxna aanu qabanin waxaana ay sheegeen in waqtigiisa dhamaaday isla markaasina talada ay ka tuuri doonaan